imikana aan si toos ah idinku wareejiyo stuudiyahayga magaalada Dammam ee cariga dalkaasi Sacuudiga iyo wararkii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo wariye Cawil Cagaare. Haye Cawil. mahadsanid Faisal FIFA. imikana waxaad ku soo dhawaataan wararkii bariga dhexe oo alaabay ka yimaada maalin kasta Jimcaha stuudiyaha Royal 24 ee bariga Sacuudi Arabiya magaalada Dammam waa anigoo ah Cawil Cagaare. imikana wararka bariga dhexe waxa ugu waaweyn رئيس الوزراء دولة كوميل غاركا ee wadanka Masar Xaasim al-Bablawi waxa horaantii wiigan uu ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay. Ra'iisul Wasaaraha ayaa iscasilaadiisa ka shaaciyay telefishinada dowladda Masar isagoo aan faahfaahin ka bixin sababta keentay inuu xilka iskaga dago, balse Bablawi ayaa ka hadlay hawlihii dowladdiisu ay qabatay intii ay xilka haysay. iscasilaada Ra'iisul Wasaaraha Masar ayaa kusoo beegmaysa xilli la isu diyaarinayo in bisha Abriil la qaban doono doorasho madaxweynaha dalka Masar. Ra'iisul Wasaaraha xilka iska casilay ayaa ah nin ku takhasusay dhinaca dhaqaalaha waxaana xukuumaddiisu ay xilka qabatay markii xukunka laga tuuray dowladii Maxamed Mursi oo ay afgambiyeen militariga dalkaas. xukuumadda kumeel gaarka ee Masar ayaa xal u weyday hoos u dhaca dhaqaalaha iyo kala qaybsanaanta shacabka Masar, arrimahaas oo loo aaneynayo inay ka dambayso go'aanka iscasilaadaas. go'aankan waxaa soo dhaweeyay ururada siyaasadda ee dalka Masar, waxaa iyaguna jira warar sheegaya inuu sidoo kale uu khilaafso kala dhexgalay hoggaanka militariga iyo ra'iisul wasaaraha. Cabdi Fattaax al-Siisi oo ah hogaamiyaha militariga Masar ayaa la filayaa inuu isagu isu soo taago doorashada madaxweynaha Masar ee soo socda. xukuumadda Nuur al-Maliki ayaa 48 saac ee ugu dambeeyay waxaa soo food saaray khasaarooyin xooggan oo ay kala kulmeen xoogagga Islaamiyiinta ee ka dagaalama Ciraaq iyo kuwa qabaa'ilka ee ka dhanka xukuumadda Nuur al-Maliki. dagaalkan qadhaadh oo ay ka qayb qaateen diyaaradaha dagaalka ayaa dhex maray ciidamada dowladda oo ka dhacay degmada Karma ee gobolka Anbar ayaa lagu soo riday diyaaradda nooceeda dagaalka ah waxaana ku dhintay dhammaan askartii saarnayd oo tiradooda lagu qiyaasay 4 sarkaal. dhanka kale xoogagga qabaa'ilka ayaa la sheegaya inay dagaal kula galeen ciidamada dowladda duleedka magaalada Fallujah. dagaalka ayaa xoogagga Sunniyiinta ay dhulka ku soo dhigeen laba ka mid ah diyaaradaha dagaalka. sidoo kale dagaalkan waxaa dhimasho iyo dhaawac ka soo gaadhay tiro ka tirsan ciidamada xukuumadda Nuur al-Maliki. gabi ahaanba weeraradan ayaa imaanaya xilli dhowaan dowladda Ciraaq ay shaacisay inay hakiyeen weeraradii dagaalka ee ay ka wadeen gobolka Fallujah. Ra'iisul Wasaaraha dalka Ciraaq Nuur al-Maliki ayaa sanadkii hore booqasho ku tagay dalka Mareykanka ayaa caalamka ka codsaday in dagaalka xukuumaddiisa ay kula jirto kooxaha Islaamiyiinta iyo kuwa ku salaysan qabaa'ilka lagu taageero isla markaana caalamka uu garab galo xukuumaddiisa la dagaalanka kooxahaas. maxkamadda ICC ayaa mar labaad soo cusboonaysiisay soo qabashada madaxweynaha wadanka Suudaan Umar Hassan al-Bashir oo horey loogu eedeeyay inuu galay dambiyo ka dhan ah xuquuqul insaanka. madaxweynaha Suudaan al-Bashir ayaa ka qayb galaya shir ka dhacaya wadanka Congo Kinshasa oo ay yeelanayaan madaxweynayaasha Afrika kaas oo lagaga hadlayo sidii loo mideyn lahaa ganacsiga wadamada Afrika. maxkamadda ICC ayaa dowladda Congo Kinshasa ka dalbaday inay qabato madaxweynaha Suudaan una soo gacan geliso maxkamadda ICC, arrintaas oo buuq xooggan ka dhalisay wadanka Congo Kinshasa iyo hay'adaha xuquuqul insaanka. al-Bashir ayaa eedeymahan loo soo jeediyay sanadkii 2009 iyo 2010 kuwaas oo ahaa inuu dambiyo dagaal ka geystay gobolka mid ah wadankaas Suudaan. booliiska dalka Turkiga ayaa gaaska dadka kaga ilmeysiisay iyo biyo ku furay kumanaan dibadbaxayaal ah oo isugu tagay magaalada Istanbul. dibadbaxayaasha waxay ku baaqayeen inuu iscasilo Ra'iisul Wasaare Rajab Tayyip Erdogan. isku dhacyadan ayaa imaanaya kadib markii la shaaciyay cod la sheegay in si qarsoodi ah looga duubay Ra'iisul Wasaare Tayyip Erdogan iyo wiilkiisa iyagoo ka wada hadlaya in la qariyo lacag tiro badan. mucaaradka Turkiga ayaa sidoo kale ku baaqay inuu iscasilo Ra'iisul Wasaaraha dalkaas Rajab Tayyip Erdogan. xisbiga ugu weyn mucaaradka Turkiga RBB ayaa sheegay in dowladdu lumisay sharciyadii oo dhan. xisbiga kale ee NAB ayaa isaguna ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo eedeymahaas. Ra'iisul Wasaaraha dalkaas Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku gacan saaray codkaas la soo bandhigay, waxa uu sheegay inuu yahay mid faalis ah. Erdogan ayaa ku goodiyay in la ciqaabi doono kuwa mas'uulka ka ah arrintaas. dowladda Erdogan ayaa waxaa soo wajahday eedeymo ah musuqmaasuq ballaaran. xisbiga talada haya Erdogan ayaa arrinta ku tilmaamay shirqo looga soo horjeedo dowladdiisa.
madaxweynaha Afghanistan ee xilka kasii degaya Xamiid Karzai ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo isagu telefoonka u diray. Labada madaxweyne ayaa isku afgaran waayay telefoonka kadib markii ay hadallo kulul isweydaarsadeen. Obama ayaa ka codsanayay inuu saxeexo heshiiskii Mareykanka iyo Afghanistan ee ciidamada Mareykanka ee kusii hadhi doona dalkaas wixii ka dambeeya sanadkan. Madaxweynaha Barack Obama ayaa uga digay dhiggiisa dalka Afghanistan in ciidamadiisa uu kala soo bixi doono dalka Afghanistan marka uu dhamaado sanadka 2014. Obama ayaa warkan u gudbiyay madaxweyne Xamiid Karzai. Xamiid Karzai ayaa diidan inuu saxeexo heshiiskan uu ogolaanayo madaxweynaha Mareykanka inuu 10,000 oo askari usii joogaan dalka Afghanistan. Wuxuu sidoo kale heshiiskan saanad siinaya dhammaan askartaasi Mareykanka iyo kuwa qandaraaska ka qaata in aan maxkamadda Afghanistan la soo taagi karin haddii ay dambi galaan. Xamiid Karzai ayaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay diidanaa inuu heshiiskan saxeexo, wuxuuna sheegay in hawshan ay u taaldo dowladda cusub ee kasoo bixi doonta doorashooyinka Afghanistan ee la qorsheynayo inay dhacaan 5 Abriil. Obama ayaa sheegay in Mareykanka uu hadda bilaabayo inuu gebi ahaanba kala baxo ciidamadiisa Afghanistan, isagoo sheegaya in waqti dheer u baahan yihiin qorsheynta dadgureynta ciidamadooda. Afhayeenka aqalka cad Jay Carney ayaa sheegay in wasaaradda difaaca iyo Mareykanka ay diyaar u tahay wax kastoo suuragal ah. Waa markii ugu horeysay in muddo ah uu Obama telefoonka kula xidhiidho madaxweynaha Afghanistan Karzai oo xiriirkooda aanu fiicnayn sanadihii lasoo dhaafay. Qaadacada Xamiid Karzai oo codsiga Obama ah ayaa muujinaysa heerka uu hadda marayo xiriirkooda. iminkana waa warar ka baxsan wararka bariga dhexe oo aan alaaba ku soo qaadano qaybaha caafimaadka. iminkana waxaynu macnaynaynaa cabitaanka biyuhu waxay yareeyaan gabowga maqaarka. ereyga biyo ayaa ah erey Soomaalidu leedahay, laakiin marka laga hadlayo cilmiga sayniska ayaa ereyga biyo ee luqadda Laatiinka macnaheedu yahay nolosha. ayaa ah waxa noole oo dhami u baahan yahay noloshuna jiri karin biyo la'aanteed darteed. biyahan ayaa aad ugu muhiimsan caafimaadka bani'aadamka. haddaba waxa kale oo biyuhu qayb weyn ka qaataan quruxda qofka. waxaa shirkadda KUMB ee ku taala wadanka England baaritaan ay samaysay ku sheegtay in 1.5 litir oo biyaha qofku u baahan yahay inuu maalintii cabo si uu jirkiisu qurux badnaado. dumarkii ka qayb galay baaritaankan ayaa waxa ay muddo 8 usbuuc ah cabayeen biyahaas. waxaa cabitaanka biyaha ka hor iyo kadib lagu sameeyay dumarkan wajigooda baaritaan oo la adeegsanayo farsamo gacmeed aad u heer sareysa si loo ogaado isbedelka wajiga ku yimid. baaritaankan socday 8 usbuuc waxaa lagu arkay in dumarkii maalin kasta biyaha cabayay uu gabowga wajigooda ka muuqday oo hoos u dhac ku yimid 19%. baaritaankan la sameeyay ayaa waxaa howlgalkiisa ka dambeeyay shirkadda la yiraahdo Willow Water oo sameysay biyaha la cabo oo ay ku jirto walaxda silicon oo marka uu jirku qaato isu bedesho silicon oxygen iyadoo wadata. walaxdanina waa mid inta badan ku jirta kareemada jirka la mariyo. dadkii lagu sameynayay baaritaankan ee cabay biyaha Willow Water ayaa 24% maqaarka jirkooda fiican yahay, laakiin waxaa jira khubaro aan arrintan weli ictiraafsanayn. mid ka mid ah khubarada aan ictiraafsanayn oo la yiraahdo Nick Lowe kana tirsan Carley Clinic ee West London ayaa u sheegay Daily Newska in aysan biyuhu wax lug ah ku lahayn uumiga jirka ka soo baxay ee ugu fiican maqaarka. daawadayaal intaas waxay noogu soo dhamaaday wararkeenii bariga dhexe. waa anigoo ah Cawil Cagaare. iminkana aan idinku duway stuudiyaha Hargeysa iyo Faysal FIFA. Faysal.